السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سولو هذا وعلى خير كبدن ما شاء الله سولو هذا إلهي بركيو ملك استاجوكتان ومر لبعض شيخ لبان علي channel ولكن لبان علي حسين السلامية إلهي بركيو ملك استاجوكتان إلهي بحفديو dhibaatadii fitinka socda allah aniga qabto ma sha allah saad ogtiin bawol channelkan aad baad ugu xirnaadeen waana aniga mahadcelinayna insha allah ilaahay barakayo khayrka aad ku xiranteen iyo ka faa'iidaysanaysaan iyo sii gudbantaba aad baan aniga mahadcelinayna ma sha allah saa ogtiin walaalayaal channelka marka hore waxaan ku talagalnay channel qisaska iyo maaragtay inay ka faa'iidaystaan dadka iyo tusaale iyo talaba maalmahan waa ka mashquul insha allah maan soo fariisan aad baan uga cudur daarnay walaalaha aad baan ugu faraxsanahay inaan mar labaad hortiin kasoo muuqdo intaasba khayr baa ka socday qur-aanka iyo cilaajka iyo muxaadaraad kale ma sha allah laakiin wixii ka dambeeya hadda insha allah aad baan isla socon doonaa insha allah sida horeba caadada noo ahayd insha allah midda kale waxaan raba walaalayaal si khaas inaan igu sheego channelkan ilaahay subxaanahu watacaala dartiisa inaan u waqfo sida social mediaha caadadiisa ay tahayba ma jiro channel ama youtube oo qof inuu samaystay haddana waqfay oo ilaahay dartiisa u waqfo inay jirna aaminsana maxaa dhacay dadka inta badan waxay u furtaan channelada ama youtube-ka magaca inay ku raadiyaan ama lacag ku helaan laakiin ani channelkayga waxaan u furay inay dadka ka faa'iidaystaan anigana ii noqoto sadaqatul jahriya sidaa darteed channelkan waxaan ugu talagalay wixii ka bilowdo waqtigaan ilaahay subxaanahu watacaala dartiisa u waqfay inay ummadda ilaahay ka faa'iidaysato oo dacwada iyo khayrka uu ka socdo oo dadkan uu sabab u noqdo inuu noloshiisa wax ka bedelo wax adduunyo kuma raadinayo umana furan adduunye ahaan bal waxaan u furtay inay dadka ka faa'iidaystaan anigana ajiraan ka helo saa darteed marka waa saa ula socotaan waa xadiiska rasuulka sal ly slam wuxuu ahay man sanna sunnatul xasana yacni qofkii bilaabo wado fiican ama wado toosan ama sunno wanaagsan marka waxaan jeclaa walaalo badan inay iga dayo doonaan hadduu ilaah yidhaahdo channelkan ani waa waqfay waxaan u waqfay ilaahay dartiis in waxa alla wixii oo horumar uu sameeyo iyo faa'iidaba aan ummadda islaamka ku nafaqeeyo aan ummadda islaamka ku daryeelo aan ku celiyo wax adduunye kama raba يعني waxaan rabaa dadka walaalaha ku xiran channelka iyo dadka gaari doona iyo dadka ka faa'iideysan doona inay markhaati ka noqdaan adduunyo aakhiro inaan aniga ahaan libaan cali aan kaga doonin channelkan wax magac iyo wax adduunyo waxaan ugu talagalay inay dadka ka faa'iideystaan oo khayrka ka qaataan oo wacdi ka qaataan oo maaragtay ka faa'iideystaan waxyaalaha qisaska iyo diiniga la soo dhigi doono channelka soo waxaan ka codsanayaa dadka walaalaha oo meel kasta jooga adduunyada oo Soomaalida qaasatan dadka afkaan ku hadlay fahmaan inay gudbiyaan ayagana sida ilaahay subxaanahu watacaala oo ajir uga siiyo man dalla ala khayri ka faa'ilihi rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam qofka markuu khayr sameeyo qofka kale intii uu ku dadaalo khayrkaas uu nashriyo ama dadka uu gaarsiiyaba ilaahay subxaanahu watacaala qofkii camalkan bilaabay inti la siiyo kala la siinaya soo kii horna waxba laga nusqaan saadadka walaalaha ku codsanayna insha Allah taala ku xilin channelkan ka faa'iideysto daayiman ilaaha barakay meel kasta joogaan khayrna ilaaha ugu bedeli jasa wanaagsan inay channelkan ay ku dadaalaan inuu dadka dhan uu gaaro qof kasta oo qofka kale ku sii gudbiyo ee ka faa'iideysta maadaama channelkan uu yahay channel ilaahay dartiis loo sameeyay وواح الدنيا لو غربنا وواح الدنيا لو فرنا وواح الدنيا لو غرادنا أو إلهي سبحانه وتعالى تستيس لو سمي سيدا قف كفرنا وغفا إلى صدقة جارية ونقطة ذات كمسلمين تملك العالم كجوجنا كفايدة استعمال حدا عملت السوشيال ميديا وأكتب ولا أروح كجرو
boqolkiiba 80 ama 90 ilaa qof ilaahay u naxariista moogiye waxa baadilka iyo macsida iyo qaflada iyo maaragtay waxyaalaha ka jiro qashinka maaragtay qof kasta jannadkiisa waxaa ogaataa midda kale walaalayaal nasteexay oo iga qaadanaysaan oo iga faa'iidaysanaysaan waxaan youtube-ka waa wax soconaya oo cimriga qofka la socdo barnaamijka ku samaysid iyo waxa soo gelisid waxaa ogaataa adoo noolna uu shaqaynayaa adoo dhimatana uu shaqaynayaa sidaa darteed marka maadaama adoo nool uu shaqaynayo adoo dhimatana uu shaqaynayo waxaa khayr badan inaad gashatid wax adigu anfacayo iyo wax adiga aad ka faa'iidaysid haddaad gelisid heeso iyo filimaan iyo waxyaalaha majaajilada riwaayadaha waxba ka faa'iidi maysid bal waxaa noqota qofkii sameeyey nashru dalaala yacni wax inaad faafisay oo baadi maaragtay meesha nashru hidaaya wax dadka ku hanuunaya ayaa sameeyay ayaa waxaa noqota sadu can sabiilillah jidka ilaahay afriisata meesha khayrka afaafilay ayaa waxaad faafisay wax xumaane saa darteed marka waxaa ogaataa wax kastoo gelisid laba mid ayay noqonayaan waxaad ka faa'iidaysatid oo ku anfaco adduunyada iyo aakhiraba iyo wax dhibaato iyo dambi iyo maaragtay imtixaankaaga yimaad adduunya aakhiraba saa darteed marka waxaa loo walaalayaa qof kasta inuu ku dadaalo wuxuu sameynayo inay yihiin wax ilaahay subxaanahu wa tacaala raali ka yahay oo ajirka helaysa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu barakeenay oo khayr ka helaysa maxaa dhacay maanta qof kasta waad ka warhaysaan dad badan oo walaalaheen khayr allah siiyo dembigoodan ilaahay ha dhaafee oo ku jira youtube-ka iyo social media oo maanta dhinteen oo qabri ku jiraan barnaamijyadoodan ilaa hadda ay socdaan oo intaas ay shaqaynayaan oo qolada youtube-ka ay ku shaqaysanayso xayeysiin iyo wax kasta ku qabsanaya laakiin asaga uu god ku jiro marka muxuu ka tegay wuxuu ka tegana maxay yihiin ma wax khayra mase wax shar ma wax wanaagsana mase wax xun qofka hadduu ka tago wax fiican asaga anfacaya qofka hadduu ka tago wax xun asaga dhibaya soo qofka waxaa rabaa inuu ka tago markasta wax fiican oo asaga anfacayo uusan ka tegin wax xun oo asaga dhibayo adduunyada ku dhibaa aakhirana ku dhibaa sidaa darteed qofka walaalayaal waxaa la rabaa wax kastuu sameynaya inuu uga daydo rasuulka sal alla alay wasalam wax rasuulka waafaqsan wax sunnadu waafaqsan wax diinta waafaqsan wax asaga anfacayo sidaa darteed marka walaalayaal khulaasat alkalaam barnaamijyada walaalaha waxaan ka wacdinaynaa inay ka dhigaan wax ayaga anfacayo iyayse ku noqon xujo maalintii yowm alqiyaama maxaa dhahay shay kastaa samaysatid beri waa ku hor imaanaya jirkaaga hadlaayo afkaaga hadlaayo carabkaaga hadlaayo lugaaga hadlaayo gacmaaga hadlaayo carabka afka markii la xiro haddana jirka dhan xubnaa hadlaayo soo shay kastaa adduunyada joogaa markhaati kugu noqona meel kastaa martay wax kastoo sheegtay wax kastoo ku hadashay iyo wax kastoo qabataba intaba qiyaamaha waa la keena adiga xujo kugu noqon ama adig kuu doodayo ama adig kugu markhaati furaayo sidaa darteed marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa mar kasta inay ku dadaalaan wax ayga anfacayo anigana insha allahu tacaala saan horena igu sheegaba mar labaadna waan i sheegaya insha allah aniga janaalkayga waxaan ugu talagalay diin baan ugu talagalay ilaahay dartiisaan u samaystay qofna adduunyana kuma raadinayn mana ku raadinayn magac iyo sharaf sidaa darteed waxaan ugu talagalay inuu sadaqa ii noqdo inuu ii noqdo ajir inuu ii noqdo sadaqatu jaariya ilaahay dartiisaan u waqfay janaalkayga waa waqfu lilah ilaahay dartiisaan u waqfay qof kastoo khayr jecel oo ilaahay jecel oo rasuulka jecel sal alla alay wasalam waxaan rabaa inay ka faa'iidaystaan horena u sii nashriyaan dadka walaalahaas ay ugu faa'iidaystaan sidaa darteed marka walaalayaal insha allah wixii hadda dambe halkaan iskala soconaynaa janalkan sheekh liibaan cali waa janal ilaahay subxaana wa tacaala dartiis loo waqfay oo ilaahay subxaana wa tacaala dartiis loo sameeyey oo wax adduunye lagu raadinayn oo wax magac lagu raadinayn soo qof kastoo walaalkeena ama walaasheena oo adduunyada dhinaca uga nool soo afka soomaaliya ku hadlayso waxaan jecelnaa inay ka faa'iidaystaan ayagana ay sii nashriyaan khayrkana waxaa waaye watacaawanu cala albiri wattaqwa weyaan khayrka iyo samafalkii wanaagga la isku kaalmaysto waxyaalaha xumaanta la isku kaalmaysan
إن شاء الله إله نوافجيو خير كان إله نوافجيو توفيق إله نوافجيو عمرك الله نوبركه مالك الله نوبركه أولاد الله نوبركه غيرك الله نوبركه خيرك الله نوافجيو عاد بعض ما سنتي إن شاء الله إلهنا خير بدن يجزي بدن الله نيسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.